aniga marka daawado dhulkeeni iyo deegaankeeni iyo dabaaldego farxad baan la ilmeeyaa farxad baan la ilmeeyaa midnimada dadkaygu ay muujiyeen sida ay iskugu duuban yihiin maalmihii waxaan dib maskaxdayda mimir ugu celiyaa halkii la soo maray yalka maanta la taagan yahay deeso hambaliyeeya hambaliye soo qora hambaliye Cabbaas Madani soo qora hambaliye reeraysi Khaatimo soo qora caawa habeenkan adduunka ku leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دمان حسلام أمد الصوماليات كارهان أمد هير إساسي خاتمه عاوة أي تاريخ دو كوب بيغان تحي لبيه تومنك جنوري عاوة وحا أي إلمي تحي أنيقا عباسهان هبينكي آن دشي أي إلمي تحي سببتو حوي وسند قوردي صدحية طمنات بركي لأنكي dowladnimada SSC Khaatimo caawa ay ku beeganta horta caawa faraxsanahay sidaan hore ku sheegay waxay ka dhigantay habeenkii aan dhashay muuqaalkan sii sheer garee muwaadin meel dheer ka tur marka koowaad waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo dhammaan ummadda reer SSC Khaatimo sanad guurada 13aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay dowladda SSC Khaatimo waxaan leeyahay hambaliyo walaalayaal hambaliyo ciid mubaarak ciid wanaagsan waxaan rajeynayaa sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo midnimo iyo wadajir iyo isku tashi iyo inagoo taageerayna baritaarayna barba taagan ciidamadeena SSC Khaatimo dowladeena ilaahay nabadqab iyo barwaaqo iyo bashbash aynu gaarsiiyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed sida wanaagsan noo taageertay ee noo garab istaagtay maalintan weyn ee asaaska dowladnimada SSC Khaatimo marnaba ma ilaawi doono dadkii Soomaaliyeed ee na tusay Soomaalinimada ee na barbar istaagay ee magaalooyinkooda iyo dhulkooda iyo deegaankooda dareen farxadeed ku muujiyay calanka iga dambeeya faraska ku xardhan yahay meel walba ku xardhay marka laga yimaado deegaanada SSC Khaatimo ee ugu horeyso caasimadda Xamar beerka idinka ogsoon maalintan maalin weyn 3 maalmood oo la gaarin baa si weyn loo dabaaldegay dhulka Soomaaliyeed oo looga dabaaldegay waxay taas ku tusinaysaa ixtiraamka jacaylka wanaaga loo hayo reer SSC Khaatimo waa dowlad goboleed Soomaaliyeed oo u taagan wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed dadka deegaanka ku nool waa dadka u soo halgamay calanka Soomaaliyeed haday noqoto yaa lagu qeexi karaa halgamayaal yaa lagu qeexi karaa geesiyaal Soomaalinimada u soo dhintay Soomaalidu maanta inay islaam ahaato dowlad yeelato calan yeelatana cidii u soo halgantay oo awayaal badan ku weyday dadka reer SSC Khaatimo weeye dhammaan ummadda Soomaaliyeed mahadsan yihiin meel kasta ay joogaan cid kasta oo nabarba istaagtay oo nala dareen noqotay oo na taageertay oo na soo dhaweysay oo Soomaaliyeed beerka ka ogsoon intaas waa qodob dhammaan deegaanada SSC Khaatimo magaalooyinka waaweyn caasimadaha degmooyinka si weyn baa looga dareemay muddo 4 maalmood waxa socday dabaaldeg lagu taageerayo ama lagu dabaaldegayo munaasabada weyn ee runtii 13 sano guurada ka soo wareegtay asaaska dowladnimada SSC Khaatimo oo lagu aasaasay 2012 talaah dadka reer SSC Khaatimo muddo 20 sano ku dhow waxay ku jireen halgan dheer oo naftooda iyo maalkooda u horeen waayo deegaankaasi waa deegaanka bridge-ka Soomaaliya isku haya haddaanay dadkaasi deegaanadaasi ku nooleen oo aanay u adkaysan oo aanay u babac dhigin cadowga hadduu yahay mid shisheeye iyo hadduu yahay mid sokeeye Soomaali mar hore kala go'i lahayd reer SSC Khaatimo haddaanay Soomaali ku jirin Soomaali way kala dareeri lahayd cidda Soomaali isku haysa waa reer SSC Khaatimo haddii aan dib u jaleeco wixii la soo maray aan xoogaa ka taataabto dhaqdhaqaaqaya bilowday oo jabhadda SSC ka soo bilaabatay oo markii dambe waxa weeye shirarkii taraax ama Nairobi ka dhacaan ama London ka dhacaan inta badalaale iyo geedi la soo waday bay ahayd dowladnimada SSC Khaatimo loonkay marxalada kala duwan baa la soo maray dagaal badan baa dhacay dadkeenu 20 sano ku dhawaad bay halkan ku jireen cid Soomaaliyeed ummadada inta leeg halkan soo wad ma jirto 45 sanadood been halkan ku soo jirnay markaan dib u jaleecno 12 sano Soomaali baa isla raadinaynay
Soomaali ay midowdo oo Soomaali ay dad Islaam waxa way ay noqoto baanu waxa way hadii la ku raadinin oo kumaan kun wiil oo yeeshay naftooda hore 20 sano ku dhawaadna dadkeen waxay raadinayeen in Soomaalida waaga oo yeeshay raadinayeen inaan la kala gooyin tina maanta waa suura gashay Soomaali waxaan qabaa maanta waxay joogtaa xilligii ay marxaati furu lahayd xilligii ay garowsan lahayd shaqada reer SS Khaatuma ay hayaan inay tahay shaqadii loo baahnaa in Soomaaliya wada qabato jiddeer oo qodaxale baynu soo maray halgan adag baynu soo maray halyeeyo waaweyn oo qiimo leh ba naftooda huray oo u dhintay bushan iyo gobonnimadan ay maanta aynu ku noolaano aniga Cabbaas ahaan marka Cabbaas ahaan maxay iga dhigantaa maalintan farxad 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 والله سان ugu farxay midnimada dadkaygu muujiyeen guusha gobonnimada maalmo adag oo la soo maray maalmo adag oo la soo maray iyo dhabar adeega aanu muujinay hadaan reer SS Khaatuma alxamdulillah rabbil alamin guul waxaan ka faa'iiday muddada aanu aan hawlahan dhaqaaqa SS Khaatuma am hawlahan aan ku jiray go'aanka adagi wuxuu ku horseedi karaa inaad himiladaada guushaada gaadhay go'aanka adagi wuxuu ku horseedi karaa dadnimadaada qofeed midaada waxa way qabiileed midaada deegaannimo wacigaaga in kor u qaado adkaysiga go'aankaaga iyo marka xaq ku taaganta aniga marka daawado dhulkeeni iyo deegaankeeni iyo dabaaldego farxad baan la ilmeeyaa farxad baan la ilmeeyaa midnimada dadkaygu ay muujiyeen sida ay iskugu duuban yihiin maalmihii waxaan dib maskaxda mibri ugu celiyaa halkii la soo maray iyo halka maanta la taagan yahay qofka garan kara waa qofka way qofku marka waxa la joogo ee guusha marka waa inuu dib u celiyo wixii la soo maray si uu adkaysi badan u sii muujiyo dadaalkiisu halkii u sii daba jibaaro aad baan ugu faraxsanahay wallahi aad baan ugu faraxsanahay hambariyo reer SS Khaatuma hambariyo guulaysta maxay inoo ballanaa marka quruxda iyo gobonnimadaas iyo guushaas midnimadiina ku timi midnimada ilaaliya ogsoonaada cid kastoo midnimadiina kala dhantaalaysa meel uga soo wada jeesta ugu dambeyn waxaan mahadnaqayaa dowladda SS Khaatuma dadaalka wanaagsan ay samaysay iyo siday shacbigeeda ula dareen ka tahay madaxweynaha Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firdhiye madaxweyne ku-xigeenka Dr. Maxamed Ismaaciil Shiine gudoomiyaha baarlamaanka Jaamac Yaasiin dhammaan horta waa mahadnaqayaa kabineetka dowladda saraakiisha hambaliyaadi lay hambaliyo caawa habeen hambaliyo wax siyaasada kale aan ka hadlay ma jirto cidii nabad bay istaagtana beerka ka ogsooni insha Allah meel fiican bay taalaa sida isugu duubnaada midnimadiina